garoonka diyaaradaha ee Garowe waxaa soo dhaweyn heer sare ah loogu sameeyay xildhibaanad Saacadiye Salaad Samatar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. xildhibaanad Saacadiye waxaa soo dhaweynteeda ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee dadweynaha iyagoona ku soo dhaweeyay hadallo ay kaga hadlayaan waxqabadka xildhibaanada tixo suugaan ah iyo weliba ciyaar dhaqameed. xildhibaanad Saacadiye Salaad Xaaji Samatar ayaa garoonka diyaaradaha ee Garowe waxa ku soo dhaweeyay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo mas'uuliyiin kale iyadoona xildhibaanadu ay ka hadashay socdaalka ay ku timid xilligan Puntland gaar ahaan Garowe. Kalaan maanta kulay halkan waxa marti noogu ah oo ka soo degay airportka Garowe International Abshir Maxamed Abshir Saacadiye Salaad oo runtii ah xildhibaanad Puntland oo dhangaali ku ah xildhibaanad miisaan ku leh dawladda federaalka iyo Puntland xildhibaanad matasha maqaamka iyo sharafta Puntland oo dhan goob walba ay joogtana runtii u taagan waxqabadka iyo horumarka matalka Puntland. waxaan leeyahay xildhibaanad Saacadiye ku soo dhawow Puntland mar kale waxaan rajaynaynaa insha Allah taala hadii alla yiraahdo kulay hadda waa soo dhaweyn kaliya inaad noqon doontid xildhibaanka ugu horeeya ee laga dooran doono Puntland gudaheeda oo ku soo noqon doona kursiga Puntland iyo matalkiisa. Saacadiye Salaad waxaan rajaynayaa waxa weeyaan waa xildhibaanad qaran weeye waana xildhibaanad runtii Puntland oo dhan ku filan oo matasha وحلبانات أن رجعنا إن شاء الله تعالى وحقبت كذي هرنا هراي ومغدي متكبدنا إن بنتلان وكيني دونتو سعدي كسر دو بنتلان مركلة إن شاء الله تعالى وحن رجعنا إنه وناجي بنتلان وقشي يهرو مركا مجرنا سامغدي أتكنتي مد هراي مد دمبابا إن نلو ذاك دونتي هذه الله يراه بنتلان وحي كدم بيا مرتدا dadka shacabka ah ee Puntland ee maanta ku soo dhaweeyeen runtii waxay ku soo dhaweeyeen waa karaamada iyo sharafta Puntland sida aad kor ugu haysid way intaan kugu soo dhaweynaynana waa inta qiimaha aad leedahayna waa qiimo qaran weeye ma aha qiimo qabiil ma aha ku soo dhawow Puntland mar kale dhamaan waa idin wada salaamaya xildhibaanka iyo wasiirka gabdhaha quruxda badan walaashay Saaradiir iyo Musamataan oo iyadana xagga fadhida isimada afhayeenka familkayga
daadigana waa ku salaamayaa dhammaantiin waa idin wada salaamayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay surprise-na igu ahayd runtii soo dhaweyntan oo la isku soo kay dhibay oo halka iiga wada timaadeen heer wasiir iyo heer xildhibaano iyo gabdhihii dumarkii oo dhan ismadii aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin maanta waxaan dareemayaa magaaladii aan ku dhashay in si qurux badan oo aan happy ahay aad baan horta idin salaamayaa waana ku faraxsanahay raalli baa idinka ahay aad baa u mahadsantihiin war badan ma qabo runtii laakiin qofka bini'aadanka aba inta kaliya oo uu sugo ama kaliya ama hanti ama nacam hadiyad waxa uu ah in la xuso oo la dareemo marka waxaan dareemayaa maanta in reer Puntland inta ugu qiimaha badnayd ii soo istaagtay oo aan aad iyo aad maqsuud idinka ahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wiilka saxaafadda kulligiin gabdhaha maxaa la dhahaa dumar oo dhan iyo ragga iyo dhammaantiin aad baan idin salaamayaa aad iyo aad ayaana idinku faraxsanahay xildhibaanad Sacdiyo Salaad Xaaji Samatar ayaa dadkii maanta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garowe waxay sheegeen in xildhibaanad Sacdiyo ay wax badan ay qabatay ay haddana ay u rajaynayaan in mar kale ay ku soo baxdo kursiga bismillahirrahmanirrahiim maanta waxaan soo dhaweynaynaa waxaana kan u taagannahay Sacdiyo Salaad gabar reer Nugaaleeda baanu halkaan saaka u taagannahay inaan soo dhaweyno oo maanta reer Puntland oo dhan waa u taagan yihiin inay soo dhaweeyaan marka waxaan leeyahay Sacdiyo xildhibaanay maamusku soo dhawow Sacdiyo xildhibaanay maamusku soo dhawow Sacdiyo saaxiibada waa ku saacideen Sacdiyo saaxiibada waa ku saacideen waxa safsaf u taagan Soomaalida Puntland waxa safsaf u taagan Soomaalida Puntland sadanaad hayso sanadkana sahal ku qaad sadanaad haysid sanadkana sahal ku qaad si weyn baan ku sugaynaayo soo dhawow si weyn baan ku sugaynaayo soo dhawow kuma talaysay ilmadeeda saxda ah kuma talaysay wax badan oo soo celisay haday mashaariic tahay haday tahay arday oo deeqa waxbarasho loo diraayo haday tahay dadka oo dhibaataysan danyarta ah wax badan soo qabatay haddana mar labaad bay ku soo biisaysaa insha Allah waan rajaynaynaa wayna ku biisi doontaa way insha Allah hadii lahayd xildhibaanada ku soo noqonaysaa waxaan rajaynaynaa qolada ay kusayso inay Sacdiyo soo celiyaan waayo Sacdiyo dadka luuqa gala annaga muqdisho joognay ogayna Sacdiyo dadka ka warqal gala telefonka laga waco ma ahayn dhuumata waxay ahayd waxay ku dhex jirtay arrimaha bulshada waxay la socotay dhaqdhaqaaqa wax kasta oo ay u baahan yihiin hadday ka wada oo maxay mid oo yahay maxay tahay oo marka oo la aadayo waxa la bixiyaa deeqa badan waxa la bixiyaa saraakiil waxa la bixiyaa bayloodyo Sacdiyo waa qofta kaliya oo soo celisay waxaan ugu baaqayaa meeshay ka soo jeedo سعيد عبد الله الدني إنه سعدية سعليو حلم واي متيسطي حقيقة طبعا وحلوات كلية وأنتوا بتجتي شعبك وحتى بنحتاج نجتي واي سعدية والجماعة وأنا هذا يطلع صومالي ودم يمتلك كرتاب بدنا عندما مثلا دم كل هاي وقفت كلية نوم يمتلك كرتاب وين لو سعلية إن شاء الله بإذن الله كريم
Thank you.